munaasabad ballaaran oo loo qabtay 45 arday oo ka qalin jabinaysay jaamacadda Bariga Afrika farceeda magaalada Ceerigaabo kuwaas oo bartay kulliyadaha waxbarashada culuumta kombiyuutarka shareecada maamulka iyo maareynta ayaa maanta lagu qabtay hoolka Imaam Shaafici ee magaalada Ceerigaabo munaasabadan ay ka soo qayb galeen maayirka degmada Ceerigaabo madax ka socotay jaamacadda Bariga Afrika macallimiinta jaamacaddaas waalidiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan ayaa ugu horreynba waxa halkaas ka hadlay gudoomiye xigeenka jaamacadda Bariga Afrika farceeda magaalada Ceerigaabo Saciid Cabdi Xuseen Mataan iyo madaxda sarsare ee ka socotay jaamacadda Bariga Afrika kuwaas oo faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ee jaamacaddu soo martay jaamacadda Bariga Afrika waxaa nasiib wanaag ah ardaydii lagu bilaabay maanta iyagoo master ah inay jaamacadda lafteedii ay macallimiin ka yihiin oo ay wax ka dhigayaan jaamacad waxaa lagu soo kordhiyay kulliyadda maamulka iyo maareynta kulliyadda computer science-ka kulliyadda education-ka kulliyadda caafimaadka iyana hadda ayaanu rabnaa insha Allah iyo kulliyadda luqadaha inaanu luqadii waa furayin macadkii baa furan caafimaadkana in lagu daraa la rabaa insha Allah jaamacadda waxaanu rajaynaynaa aqoon ahaan in aqoonteeda aad loo tayeeyo waxaanu diyaar u nahay waxbarashada magaalada Ceerigaabo gaar ahaan inaanu qayb libaax leh aanu ka qaadano waxaa muujinaya ardayda maanta qalin jabinaysa waxaa ku jira 4 maamule oo kamid ah maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe sare ee gobolka Sanaag waxaa jirta oo anagu aanu ka qayb qaadanay waxa la yiraahdo hagaajinta ama kor u qaadida tayada waxbarashada waxyaabaha aanu sameynay waxa kamid ah waxaanu bilownay maadooyinka jaamacadda Bariga Afrika baxa oo idil say u leeyihiin in kulligood dib loo badqana habeeyo annagu ujeedadeedu tahay ardayga jaamacadda ka baxaya inuu jaamacad kasto caalamka ku yaal inuu matqaala u teegi karo waxbarasho waxaan baleenayaa mar koowaad iyo marka labaadba ardada dhameysay jaamacadda Bariga Afrika fakultiyeeda kala duwan marka labaad waxaan ku dardaarmayaa ardadaasi yani Soomaalidu waa la iska wahsadaa oo jaamacad baa dhameysay bas maaha ardada waxaan ku dhiirigelinayaa inay hankooda u noqdaay inay PhD qaataaniin waxa iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada xubno ku hadlayay afka waalidiinta ardayda kuwaas oo dhamaantood ardayda ku hambaliyay cilmigan ay barteen aniga waxa la igu yeeray magaca muasasada Al-Karam lidacwa wa tanmiya oo runtii aan ahay gudoomiyaheeda waxaanu ka nimi magaalada Hargeysa jaamacadda Bariga Afrika inaanu ugu deeqna maanta 10 arday oo magister soo qaata oo macad al-aali uu siiyo ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadlay maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur waxaynu u ducaynaynaa ardadeena maanta qalin jabisay ee halka joogta ee ka baxday 4 sanadood ay soo socdeen ee u dadaalay oo kuwa la mid suuqa joogan oo aan alif baran waxaan leenahay ilaahay barakeeyo ku naftooda anfaca oo dalkooda anfaca oo dadkooda anfaca Allah idinka yeelo intaas kadibna waxa halkaas lagu gudoonsiiyay shahaadooyinkii ardaydii qalin jabisay Yunis Axmed Saalax Universal TV Ceerigaabo